subaxnimadii hore ee saaka baara 10kii subaxnimo ayaa xarunta KICC ee ku taala magaalada Nairobi waxa dib uga bilaabmay wajigii labaad ee shirkii lagaga wada hadlayay baalgashiga iyo dibudhiska wadamada Somaliland iyo Soomaaliya iyo wadanka Kenya kaasi oo qaybtiisii labaad saaka subaxnimadii hore markii ay bilaamatay ay ka soo qayb galeen wasiirka tamarta ee wadanka Kenya Mr Nagib Balala iyo wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar xubno ka socda wadanka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan wadanka Kenya oo ay kamid yihiin Maxamed Cabdi Afay iyo qaar kale oo badan shirkan oo sidoo horeba ay ula socoteen ay isugu yimaadeen dhamaanba hay'adaha madaxa bannaan leh iyo ganacsatada caalamiga ah oo ahaa mid lagaga wada hadlayay sidii ay u maalgashan lahaayeen wadamadaasi Soomaaliya Somaliland iyo wadanka Kenya ayaa qodobadii wax ku oolka ah halkaasi lagu doodayay ama la isku weydaarsaday waxa faahfaahin buuxda ka bixiyay Maxamed Cabdi Afay. It's already afternoon. Today we have the distinguished presence who is going to have this occasion to speak to all the who want to get involved in the reconstruction of Somaliland and Somalia. And is going to give us the Kenya government position in this matter. He is also going to officially close this two-day conference that has brought together yesterday and today. We had the distinguished presence of the Minister of Commerce and Industry of Somalia, the Honorable Mahmoud Ahmed Hassan, who could not be able to be here this morning, and the distinguished presence of the Deputy Minister, Engineer Nadif Osman, Ministry of from Somalia, and also the distinguished presence of the Foreign Minister of Somaliland, His Excellency Mohammed Abdullahi Omar, and all these distinguished leaders Nairobi yesterday to showcase possibilities of investments Somaliland and Somalia. shirkani oo ahaa gabagabo waxa soo xiray wasiirka tamarta ee wadanka Kenya Mr Nagib Balala isagoo markaas u hambeliyay wadamadii ka soo qayb galay ay kamid ahaayeen Jamhuuriyadda Somaliland, wadanka Soomaaliya iyo wadanka Kenya isla markaasina ku amaanay ganacsatada iyo maalgashadayaasha ka soo qayb galay shirkani in ay dalka la maalgelinayaan faa'iido u tahay cidda maalgashanaysana ay faa'iido u tahay oo aan marnaba lagu khasaarahaynin wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka qayb galka shirkani ay ku wehelinayeen safiirka Somaliland u fadhiya wadanka Kenya Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir iyo xubno kale oo wafdi ahaan ula socday wasiirka ayaa markii shirkaasi uu soo dhamaaday TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee ka howlgala wadanka Kenya warbixin kooban oo ku saabsan xiritaanka shirkani siiyay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdullaahi Cumar. shirkii lagaga hadlayay arrimaha maalgashiga iyo ganacsiga shalay halkan ka furmay ayaa maanta soo xidhmay waxaana ka soo baxay baaq iyo codsiyo loo gudbinayo hay'adaha kambaniyada maalgashiga iyo investmentka adduunka waxaan rajaynaynaa in arrintaasi ay wax ka tarto kobcinta dhaqaalaha Somaliland waxaa dowladda Kenya oo halka shirkan martigelisay iyo shirkadii kale ee arrimahan agaasitiga waxaa ka muuqatay in dadaal fara badan loo hayo sidii loo kobcin lahaa sectorka businesska Somaliland iyo Soomaaliya waxaan rajaynaynaa in wax u tara shaqo abuuridda iyo dhaqaalaha dalka Somaliland inay ka soo baxaan sidoo kalena isla galabnimadii maanta ayaa wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdullaahi Cumar waxa uu shir ballaaran la qaatay qaramada midoobay shirkaasi oo ay ahaa mid ay albaabada u xiran yihiin oo ilaa hadda soconaya ayaa qodobada ka soo baxa iyagoo faahfaahsan waxa heli doontaan wararkayaga beritoole haddii Ilaahay idmo. Ilaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Nairobi.